إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ما بعد، موضوع محاضرة وموضوع سيمينار aad u dheer buu ahaa, laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo khulaaseeyo oo saacaddan ama wakhtigan aan haysto aan uga faa'iideeyo. Mowduuca waxa weeye sidaad ku noqon kartaa qof isagu hagaagsan mujtamaca iyo dadkana waxtar u leh. Si uu qofku u noqdo qof isagu hagaagsan mujtamacana waxtar u leh, wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 4 arrimood inuu qofku leeyahay ama 4 fure inuu taxqiijiyo. Waxaad ka arki doontaan PowerPoint-ga iyadoo English pointiyada qofkii la socda qodob insha Allah taala. Qodobka ugu horeeya ama furaha ugu horeeya oo qofku u baahan yahay in uu noqdo si qof waxtar leh uu noqdo waxa weeye kun saalixan, adigu naftaada qof hagaagsan noqo. Waxaan rajaynayaa mikrofoonka waa la maqlayaa soo ma? ku dhaweey miya? waxaad noqotaa qof hagaagsan noqo. kun saalixan marka la leeyahay qofka qof hagaagsan maxaa laga wadaa? inagu waxaan naqaanaa mar walba inaan naqaano qofkaasi qof wanaagsan weeye. si aad qof wanaagsan u noqoto oo hagaagsan, waxaan u baahannahay inaan marka hore baranno waxa la yidhaahdo saalixa ee qur'aanku uu ammaanay, ee sunnada nebigu sala allahu alay wasalam ay faanisay inaan baranno. waxaan kaloo u baahannahay in aan baranno noocyada salaaxa u qaybsamo. waxaan kaloo u baahannahay in aan baranno tilaabooyin camali ah ama practical steps oo qofku markuu qaado uu qof wanaagsan noqon karo. waxaa qur'aanka ku soo noqnoqotay ambiyada ilaahay marka la ammaanayo inuu ilaahay ku ammaano wuxuu ahaa qof wanaagsan. waxaad arkaysaa قرآن كحله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين. waxay ahayd dad saalixiin ah. waxaad kaloo qur'aanka ku arkaysaa ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. addoomadayda wanaagsan baa adduunka dhaxli doono oo mas-uul ka noqon doono. ataxiyaadka aan akhrino maalin walba intaasoo mar waxaa ku jirta assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin. marka qofka saalixa ah oo qofka aan raadinayno oo culimmada aan ka maqla mar walba iyagoo dhahaya allaahuma ajcalnii min cibaadika saalixiin, waa qof sidee ah? waxaa la yidhaahdaa haddii la qeexo saalix qofka la yidhaahdo, waxaa la dhihi karaa waa qof xuquuqda ilaahay ku leeyahayna la yimaada, xuquuqda bini aadamku ku leeyihiinna la yimaada. waxaa kaloo lagu tacriifiyay saad hadda arkaysaan, waxa weeye qofku inuu ka guulaysto waxyaabaha shahawaadka ama raqabaadka naftiisa ah. qofka naftiisa controla oo qur'aanka raaca oo sunnada nebiga raaca oo naftiisa ka adag ayaa waxaa la yidhahdaa saalix. si aad naftaada uga adkaatid ood qur'aanka iyo sunnada u raacdid waa inaad 2 arrimood la timaadid. waxaa la yidhaahdaa alsalaaxu aliijaabi
salaaxa wanaagsan waxaa laga wadaa wixii alla ku amray oo qur'aanku ku amray oo sunnadu ku amartay inaad waxaad awoodid aad la timaadid. dhinaca kale waxaa laga rabaa waxa la yidhaha asalaaxu salbi, inaad ka tegtid oo ah wax kaste oo xun oo lagaa reebay inaad ka fogaatid. maalan salaaddii inaad tukatid, inaad soomtid, inaad qur-aankii akhridid, inaad runta sheegtid, inaad wax sadaqaysatid, inaad xishootid, inaad akhlaaqdaada hagaajisid, waa salaax ijaabi ah. dhinaca kale inaad zinadii ka tegtid, shirkigii ka tegtid, oo zinadii ka tegtid, oo dilkii ka tegtid, oo tuugnimadii ka tegtid, oo beentii ka tegtid, oo isdabamarintii aad ka tegtid, oo cuqdada iyo xaasidnimada aad ka tegtid, waxaa la yidhaahdaa salaax salbi ah. haddii si kale loo yidhaahdo diinteennu waxay ku dhisan tahay inaad naftaada faaruqisid, waxa xun oo dhan aad ka faaruqisid, waxa fiican oo dhanna aad ku cabbaysid bay ka kooban tahay. masalada labaad, haddaad rabtid salaaxa awal nuqta ama darajada ugu horeysa ee wanaagga salaaxu ka bilowda, waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu gartaa markii dembi kaa dhaco inaad dembigii ka shallaydo. waxaa la yidhaahdo ta'niibu alqalbi calaa ficli almacsiya, markaad macsiye samaysa qalbigaagu inuu gubto ood ka xumaato. wuxuu markaa qofka raacinayaa inuu towbad keeno, inuu go'aansado inuusan mar damba samaynin wixii ayuu raacinayaa. in uu sawirto qofku markii uu dembiga sameeyey malaa'igtu siday kuu aragtaa, alla sidee buu kuu arkaa inaad sawiratid qof xun oo uraya oo shaydaanka raacay oo xun oo ilaahay u carooday inaad noqon kartid. marka wuu soo noqonayaa markiiba. waa salaaxa meesha ugu horreysa uu ka bilowdo. waxaa la yidhaahdaa qofkii sameeya qodobadan wuxuu noqdaa insaan saalix ah. qodobka ugu horeeya waxaa weeye ficlu lcibaadati bilikhlaas, inaad cibaadada u samaysa ilaahay darti, wax dan oo kale aadan ka lahayn. innagu mar walba waxaan dhahnaa ikhlaas ikhlaas, laakiin ikhlaaska waxaa loola jeedaa ficilka aad samaynayso inaad alla darti u samaysid oo dan kale aadan ka lahayn. waxaadna ogaataan camalka qofku sameeya waxa ugu qiimo badan waa inuu ikhlaas iyo ilaahay darti wax u sameeyo. waa camalka keliya oo malaa'igtu aynan arkin xataa. fiiri, malaa'igtu ma arki karto inaad ikhlaas samaynaysid iyo in kale. walidaalika markaad salaad tukato malaa'igtu waxay qoraysaa inaad tukatay. laakiin waxaa dhici karta markii qiyaamo la keeno inuu ilaahay salaadaadii ziira ka dhigo dha waxba kama jiraan. malaa'igtuna way soo qortay. waad la yaabaysaan marka la leeyahay nin sadaqo badan, nin qur-aan akhris badnaa, nin sheekh ahay oo cilmi badnaa baa naarta lagu shidaa oo dadka ugu horeeya. sababtoo malaa'igtu way soo qortay inuu qof wanaagsan ahaa, laakiin alla ogaa xaqiiqadiisa. shaydaanku ikhlaaskaaga ma arko si u fasahaadiyo, ma arki karo. fiir, waa sir ilaahay addoonka qalbigiisa uu geliyey. waxaa la yidhi waxaa lagu gartaa in camalkaagu ilaahay dartii kaa yahay marka aad keligaa tahay, camalkaaga inuusan nusqaamin oo yaraanin. marka aad dadka la joogtid inuusan camalkaagu badanin oo uusan ka fiicnaanin kii kale. markii lagu ammaano inaadan camalka sii xoojinin ooda sii farxin baa lagu gartaa. markaad keligaa tahay, markaad dadka la joogto, marka lagu ammaano, saddexdaba waa inaad isku mid noqoto haddaad ikhlaas u samaynaysa camalka. marka waa masale muhiima weeye, ilaahay dartii inaad ilaahay wax u caabudid. wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin buu alla leeyahay. masalada labaad, iimaankaaga inaad xoojiso. qofkan jirkiisu wuu caatoobaa, wuuna dhammaadaa, wuuna wasakhoobaa. iimaanku saasoo kale wuu caatoobaa, wuu wasakhoobaa, wuu dhammaadaa. iimaankaaga inaad ilaalisid haddaad rabtid addoon saalixa inaad noqotid. masalada saddexaad, salaada markaad tukanaysid inaad u tukatid bilkhushuuc, salaad khushuuc wadata. 5 salaadood oo ilaahay ku amray oo habeenkii maalintii la tukado inaad u tukatid si khushuuc leh. masaladaas weeye mas'alo dadku ay ku kala tageen. salaaddu waxay leedahay daahir muuqda oo ah sida loo qurxiyo ama hay-aadka loo tukado.
iyo wax qarsoon oo dadku ayna arkin oo ah khushuucdaada. salaaduna waxay salaad ku tahay khushuucda. salaaddii nebi maxamed jeclaan jiray sal allahu alay wasalam ee uu ku degi jiray, ee uu ku ilqabowsan jiray, ee walwalka ka saari jirtay, ee xumaanta ka reebi jirtay, waa salaad markuu tukanayo qofka uu ku khushuucay. allah wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. mu'miniinta ayaa liibaanay, waa kuwa salaada tukada lama dhihin, waa kuwa salaada ku khushuuca. nin gaal ah ayaa wuxuu samaynayay seminaar. marka nin sheekh oo la yidhaahdo doctor jasim mutawac baa ka sheekeeyey. wuxuu yidhi seminaar baan ka qayb galay, waa self training oo kale, oo lagaga sheekaynayo si qofku uu walwalka isaga ilaaliyo. gaalkiya marka wuxuu yidhi الإنسان كي يتغلب على القلق يحتاج إلى أمور 4. قفك سوال والكإستجاء إلى عليه 4 أرمود وباهية. أرنتك بعض وحوية الرياضة جميع سب قفك سمعينيا. هذا قفك جميع سب بدن سمعيه بيجري والول ما قبنايه. وأرتجالد وهو أرديان. هداد أرديد أو حقاديد أو عاد لأن يرى هذا بنون عيارت فيري ويسكفر حسين. waa aragteen nimankii geela raaci jiray haddaad maanta oo dhan geel raacaysa ama geel waraabinaysa hameenkii walwal kuma qabanayo, meesha soo gaadhid baad seexanaysaa. wuxuu leeyahay wuxuu kaloo u baahan yahay annawm alcamiiq, hurdo aad u dheer, deep sleep. walidaalika waa aragteen qofku markii ay ku dhacdo stress iyo wax la mid ah waxaa loo qoraa kiniin hurdo waa loo qoraa. wuxuu leeyahay midda afraad waxa weeye al-istirkhaa, waxaan la yidhaahdaa relaxationka ama meditation inuu sameeyo, inuu xoogaa indhaha isku qabto oo maskaxdiisa uu dejiyo sida qof seexanayo kale. wuxuu gaalkiiba wuxuu yidhi waraabicatun mid afraad wahiya cinda almuslimiina faqat, muslimiinta keliya unbaa haysta, wahiya alkhushuucu fii salaatihim, waa salaadoo lagu khushuuco. allah wuxuu yidhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. xaqiiqo weeye, laakiin innaga waxaa dhici karta salaadan tukanayno inaynaan waxba ka ogeyn oo aynaan la soconin. maalin baan kelimad khudbo jumcaan waxaan ka akhriyay khushuucda salaada iyo aadaabta salaada, iyo nin oday ahaa salaaddii kadib iyimid oo garcas wuxuu yidhi sheekh horta salaad aan tukaday tii maanta iila fiicnayd. maantana markaan salaaddii galay yaan waxaan xasuustay buu yidhi mid aan qaraabanahay oo xalay isagoo ciyaal 5 cunug baabuur ku wata shil galay, laakiin ilaah baa badbaadiyey. markaasaan waxaan wacay Canada, ribood baan bixiyey. sacuudigaan wacay bi ribood baan bixiyey. markaan Soomaaliya sii mariyaan is xasuustay bi wallahi wadaadku wuxuu sheegay inuu waa lagu wataaye waan soo noqday bi. marka wuxuu isaan dagaal ugu jiray baa salaadii dhamaatay maantaana ugu roonaa. waxaa dhici karta inaad ogeynba wax la akhrinayo. wallahi dadka qaarkood nin imaama wuxuu ka sheekeynay wuxuu salaad baan tujiyey, markaasaa waxaan akhriyay faatixada bi غير المغضوب عليهم ولا الضالين dadkii oo dhan aamiin bay dhaheen bi. waxaan akhriyay suuratu shucaraa كسام حق أخريبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. يقدم يا وحيد آمين. ونكاس محو آمين سدي. وحوم مغلي الضالين آمين بكتب قبط. هذا الصلاة هذا أوجين واحد تكنيسيد أو واحد آخر ليس آذن أوجين أو إمامكم مير ومرة آذن أوجين صلاة ده وحبك كميه ليس. مركز صلاة هذا إن تكون شعودين أو تكور قبتين أو إلى لسد isku day haddii aragtay inaad addoon saalix noqotid way ku saamaynaysaa. markaas qodobka kale waxa weeye haddaad wax uun haysatid adduunye ah wax ka bixi, dadka wax tar, wax sadaqayso, ilaahay dartii wax u bixi, maalkaagu aad bixinaysa iimaanku xoojiya. masalada kale waxa weeye wixii dadka bini aadamka nabadgeli ha kaa nabadgeleen dadku. laa tu'di almuslimiin, muslimiinta ha dhibin. haddaad dadka dhibto oo aad dhibaato u geysatid salaaxaagay dhaawacaysaa. waxaad kaloo samaysaa shareecada islaamka intaad awoodid ku dhaqan. waa qodobo practical steps ah oo ka hadlaya salaaxa. ikhwaani marka masaladaas waxa weeye haddii aad rabtid inaad noqoto addoon saalix ah bal qodobadaas isku day. kow iimaankaaga xoog u yeel, ilaahay dartii camalkaaga ka dhig, salaada tuko, wax sadaqayso, dadka ha dhibin, shareecada waxaad awoodid kaga dhaqan, qof dadaalaya noqo naftiisa waardiyeynaya. qodobka labaad oo haddaad rabtid inaad noqotid qof waxtar leh oo mujtamaca dhexdiisana wax ku lagaa rabo waxa weeye alhimma alcaaliya
waa high ambition. High ambition inaad leedahay himmo sare inaad leedahay. markaan himada sare ka hadlayno waxaa la yidhaahdaa dadka badankoodu waxay ka sheekeeyaan inuu qofku hami sare leeyahay, laakiin waxaad ogaataa naftaada meesha aad dhigto unbay gaaraysaa. khaasatan dhallinyaroy, inta aad yar tahay oo aad wax baranaysid waxaad yeelataa himad aad u sarraysa inaad tahay qofka adduunka ugu sarreeya oo waxa ugu weyn qabsan kara. waxaadna ogaataa qofku waxa uu ku hamiya buu noqdaa. walidaalika nebigu sal allahu alay slam wuxuu leeyahy xadiis saxiixa, markaad jannada waa 100 darajo. darajada haddaabad ilaahay weydiisanaysa jannada qayb ka mid ah, jannatulfirdowsa weydiiso. waa jannada midda ugu dhaxaysa, waa midda ugu sarraysa, waa midda carshiga raxmaan hoostiisa ku aadan, waa midda nebigu wuxuu leeyahy sal allahu alay slam ilaha jannada ama webiyadu ka soo burqadaan. haddaad ilaahay wax weydiisanaysid jannatulfirdowsa weydiiso, waa jannada ugu sarraysa. ha dhihin ilaahu jannada igeli keliya, ilaahu jannada midda ugu sarraysa igeli. fiir, waa hamad sare weeye. walidaalika waxaa la yidhahdaa qofku wuxuu hamiyo wuu gaaraa. waxaa jirtay qiso cajiib ah, 4 nin oo ka mid ahaa caruurtii saxaabada ee taabiciinta ahaa ayaa maalin waxay fadhiisteen kacbada bannaankeeda. 2 wiil oo ka mida waxaa dhalay Zubayr ibnu Cawaam, waa Muscab ibnu Zubayr iyo Curwata ibnu Zubayr. midka saddexaadna waa Cabdimalik ibnu Marwaan, midka afraadna waa Cabdullah ibnu Cumar. waa wiilal dhalinyaro ahoo saxaabada caruurtoodii ah. markan waxay dhaheen niman yahow maanta bal aan tamanino, maxaan jeclaan lahayn inaan noqono. mid baa hadlay oo wuxuu yidhi, waxaa la yidhi Muscabow aduu bilow. Muscab ibnu Zubayr wuxuu yidhi, Muscab ibnu Zubayr anigu niman yahow waxaan tamanin lahaa haddii maanta lay dhaho maxaad jeceshahay inaad noqotid, an akuuna waali lciraaq, magaalada ciraaq inaan waali ka noqdo, governorka ciraaq inaan noqdo. waxaan kaloo jeclaan lahaa gabadh la yidhahda Sakiinatu bint Xusein oo Xusein ibn Ali ibn Abi Talib uu dhalay inaan guursado. waxaan kaloo jeclaan lahaa Caatikata bintu Talha ibn Ubaydillah inaan ku labeeyo. waa 2 gabdhood oo gabdhihii ugu quruxda badnaa, ugu sharafta badnaa dadka, inaan 2daa gabdhoodna isku darsado, ciraaqna aan waali ka noqdo baan jeclaan lahaa. ma rumaysan kartaan intiiba wuu helay. fiiri hamada, fiiri ninka dhallinyarada hamigiisa meeshuu dhigo ayuu gaaraa. haddaad ka fakertid un calooshaada iyo farjigaaga iyo waxaad cuni lahayd iyo meeshaad seexan lahayd, haddaad ka fakertid oo iyo banooni una aad ka fakertid meel ma gaaraysid. fiir meeshuu ka fakerayay ninka dhallinyarada, 2 intiiba uu helay. waxaa ku xigay baa la yidhi ninka la dhihi jiray Cabdimalik ibnu Marwaan. waxaa la yidhi adigana ka waran. si wa ana atamana alkhilaafa, anugu waxaan jeclaan lahaa oon tamaninaya, waxaan rabaa khaliifka muslimiinta inaan noqdo. khaliifkii umawiyada oo la dhihi jiray Marwaan ibnu Xakam, Cabdimalik ibnu Marwaan ibnu Xakam, soo asaga ma ahayn. marwaan ibnu xakam waa ninkii dhalay khulafadii oo dhan ee khaliifkii umawiyiinta ah weeye. muslimiinta oo dhan buu amiir mu'miniin u noqday. ninkii saddexaad baa leeyahay curwata ibnu zubayr. markaasuu wa ana atamanaa an akuuna faqiihan yaxmilu nnaasu canii xadiida rasuuli llahi sal alla alay slam. aniguna waxaan jeclaan lahaa oon tamaninayaa inaan noqdo nin fiqi badan oo dadku xadiidka nebiga ay iga bartaan. wuxuu ku jiray fuqahadiis taabiciinta buu galay. ninkii afraad baa lii adugu hadal waa cabdullaahi ibnu cumar. cabdullaahi ibnu cumar raggaan oo dhan wuu ka duwan yahay. marka cumar ibnu khataab baa dhalay, nebigu ka ag dhowaa, raggaan dhan wuu ka sarreeyaa. markaasuu wuxuu wa ana atamana aljanna, anigu hamigayga waa janno inaan galo. insha allah jannada wuu galay. waxaad fiirisaan qofka dhallinyarada ah meesha uu hamigiisu gaarsiiyo buu gaaraa. maalin maalmaha ka mida yaa masaajideenna ka mida anoo gadaal ka imid oo ag maraya yaa waxaan u imid masaajidka gadaasha. waa waqti samara, wiil dhallinyaro ah oo qurxoon oo intuu t-shirt buu wataa. marka intuu funaanadii iska bixiyey oo gadaal saartay, gabar baa hortaaga buu murqihiisa tusaya. markaan kusoo baxaan waxaan ku idhi, brother what are you doing, maxaa samaynaysaa? markaasuu sheekh macalin I was showing her my muscle. oo maxaa u tusisaa murqahaaga? inaan ka waalaan rabay gabadha. fiiri dhallinyaradeenna hamigooda fiiri. waxaan idhi brother adiga hamigaagu ma inaad gabdhaha muslimiinta ka waashidba? meesha rag ay ka fakerayaan inay xidigaha gaaraan
inay adduunka maamulaan inay adduunka wax ku soo kordhiyaan inay waxtar noqdaan ma waxaad ka fakirtay oo keliya inaad gabdhaha muslimiinta ka waashid intaa miyaa hamigaagu ninka dhalinyarada marka hamigiisu yahay gabar iyo banooni iyo cayaar iyo tv iyo sports intaas keliya ka fakara hamigiisu wuxuu noqonayaa inuu meel cunto uu cuno helo meel uu seexdana inuu helo laakiin hadduu hamigaagu intaa ka sarreeyo meesha aad hamiday ayaad gaaraysaa marka hamigaa kor u qaad haddaad rabtid adduunka inaad wax ku soo kordhiso naftaadana aad wax tartid hamigaaga sare u qaad masalada saddexaad oo aan rabo inaan idinla wadaaga waxaa weeye waa masaladaas hadda calaamadda weyn ku sawiran waxa weeye haddaad rabtid inaad nolol wanaagsan ku noolaatid haddaad rabtid naftaada inaad wax tartid haddaad rabtid dadka kale inaad wax tartid waxaad ku dadaashaa 10 shay ee positive-ka ah waxaa la yidhaha al-iijaabiyaat al-10 10 shay ee positive-ka ah inaad naftaada ku tarbiyaysid ku dadaal 10 shay hadda powerpoint uu iga dhamaaday powerpoint-iga kale buu ahaa oo ninkii dhalinyarada ahayoo barnaamijkan isugu kay dubarida ما شاء الله واهلي جزاك الله خير واهلي جزاك الله خير واهلي جزاك الله خير توعي ها الإيجابيات ال10 طبعا كشيء إيجابي جاء not this one كان يقحل ما شاء الله ما شاء الله خير وجزاك الله خير طبعا كشيء أو إيجابي جاء والرب النفط هذا إن تكتر بيسد وحوي وحن نفط هذا عادة وقد نكتا أخي درس كان مهمة دي صرنا وحن ربا قف كتل يرضى نفتي سإن يكو أبورنتو وحلا يراهدو كرتي أسقونا وحتر نقضه نفتي سنة وحتر وحد كده ده شامر بوحلا تفاؤلك وحوي وحلا أبتميزمك وحوي إن آد نقطي قف مرول بوح وناكسن ملايستا فيري مرول بالنيادة ذو حد قشتا إن آد وح وناكسن هليسي اللو وناكسن وقيمة بدن ورحمة بدن وأدومدي سجعل بعد لا ضحي وحتى مسلم وحتى تشانس وحتى عقلي وحتى dadka qofka ugu sareeya muruga kuma qaabanayso dhibaata kuma taabanayso dadka ada ugu sareeya ada ugu qiimo badan waxba soo saari kartaa wax walba waa khayr wax walba waa wanaag inaad mar walba filatid tafaa'ul baa la yiraahdaa masalada labaad taxamas xamaasadu waxa weeye naftaada waxaad gelisaa inaad noqoto qof mar walba active ah oo firfircoon noqo marka subaxii soo kacdid adoo lazy ah oo cagaha jiidaya oo kicilaha soo kicin adoo xamaasaysan oo firfircoon soo kac nolosha qaabil masalada saddexaad taxadath can النجاح waxaad mar walba ka sheekaysaa waxyaabaha naftaadu ay ku najaxday fiiri wa talk about the success naftaadu waxay gaadhay ka hadal inagu waxa mushkilad noo ah Soomaalidu waxay dhahaan caado waxay u leeyihiin nimanku waxay ka sheekeeyaan ba'ooda dumarkuna baraarahooda nimanku waxay ka sheekeeyaan dhibaatada bari baa doon ila degtay bari baa qola ay cayrsatay bari baa la xiray bari baa halka la igu qabtay naag baa iga carartay midaan shukaasanay baa la iga qaatay war waxaan mushkilada maxaad uga sheekeynaysaa dumarku waxay ka sheekeeyaan dahab baa la ii gaday gurigeyga intaasoo dahab ah ku xiran ninkaygu waa i jecel yahay carruurtaydu waa saan wax wanaagsan bay ka sheekeeyaan walidaalika anu waxaan aaminsanahay dumarkaa dhinaca naga fiican waxaa leeyahay nafta haddaad najaaxa uga sheekaysid naftaada waxay iska dhaadhicinaysaa inay tahay shakhsiya naajixa inay tahay ma iska dhaadhicinaysaa marka waxay baranaysaa waxyaabaha wanaagsan iyo hamada sare marka naftaada mar walba waxaad uga sheekaysaa waxyaabaha aad ku najaxday waxyaabaha aad ku fail garowday oo aad ku khasaartay ha focuska ha saarin waa masale muhiima wey masalada afraad awjid albii'ata aliijaabiya waxaa samaysataa adigu positive environment waxa weeye bii'o iijaabi ah
dadka aad la soconaysa ha noqdeen dad positive ah oo wax fiican oo khayr sheegayaal ah. meesha aad fadhiisanaysa ha noqoto meel khayrka iyo wanaagga iyo horumarka lagaga sheekeeyo. gurigaagu ha noqdo guri horumarka iyo wanaagga lagaga sheekeeyo. bii'adaas positive-ka ah oo wanaagsan fiiri haddaad samaysid xaqiiqa ahaan dadka kale waad ka sara maraysaa. walidaalika waxaad arkaysaan odayaasha iyo dumarka isqaba iska daa wax kale ah haddii aad qofka dhiiro geliso ood wax wanaagsan u sheegtid oo aad ka dhaadhicisid inuu yahay qof wanaagsan qofka niyada u dhismaysa. hadda waxaad fiirisaan jidka adoo maraya waxaa kaa hor imaanaya nin saaxiibkaa assalaamu calaykum wacalaykum assalaam wuxuu ku leeyahy intuu fiiriyo waray warra ma fiican tahay nin oo baryahan xoogaa siyaa wax kaa yihiin miyaad xanuunsatay. muraayadda markaad tagtay maxaa kaa dhaadhacaya warniyo kaale xaggee wax iga noqdeen baryahan xaggee wax ka jiraan wallahi ma seexan hameenadaa adigaa iska dhaadhicinaya. mid kale waxaa dhici karta inuu kaa horyaamdo assalaamu calaykum war ninkii hebarha wariyo waa nuuraysaa baryahan majiimkaad la kalaamtay mase waa aroostay wallahi jaakada toosanaysa waxaa soo qaasa ninka adduunka ugu sarreeya inaad tahay. wallahi niyo baryahan horta maxaa sameeyey wallahi kareemkaa isticmaalay baa fiicnaa xalay baan si fiican u seexday niyada ku dhismaysa. fiiri qofkaana waa qof positive qofkaana waa qof negative ah wey. dadka niyada ka dila oo qabiilka ka sheekeeya oo xanta ka sheekeeya oo masaajidii caayaya oo culimadii caayaya oo qabaa'ishii caayaya oo qoysaskii caayaya oo adigii ku dacaayadeynaya hala fadhiisane. dadka positive-ka ah ee ka sheekeeya najaaxa nolosha horumarkeeda ganacsiga dayaanada xifdul qur'aanka waxbarashada si meel lagu gaari lahaa qiimaha qofku leeyahay oo niyada ku dhisay qofkaa la sheekayso la saaxiib waa wax cajiib ah waay. naftaada qofkaas wuu saameynayaa wey. marka bii'a waxaad samaysataa positive ah. masalada shanaad jadid maa xawlaka noloshaada mar walba cusboonaysi. hadday noloshu rotiin noqoto waa laga daalaa. mar walba inaad cusboonaysid renewal inaad ku samaysid. walidaalika adiga xaas baad qabtaa bal waxaad fiirisaa markaad islaan guriga caawa tagtid haddaa u tagtay islaantii oo sariirtii xagga u jeeday dhinaca u jeedisay waxaad dareemaysaa guri cusub baad dareemaysaa. islaanta haddaad caawa intaad kaxaysatay aad qolka fadhiga la seexatid caawa aroos baad noqonaysaa. fiiri bal habeen usbuuca ka mida ama bishii ka mida ama sanadkii ka mida intaad ciyaalka uga tagootid qof markay seexdaan qof ehelkaa islaanta hotel fiican la deg habeenkaas oo la seexo aroos baa tahay gabar yaroo aroosa wey. maxaa keenaya waa tajdiidka wey. waa nolosha cusboonaysiinta wey. noloshaada akhil kariim cusboonaysiin hal qaab hadday ku socoto waad ka caajisaysaa. mar walba kala bedel waktigaad kacayso waktigaad seexanayso cuntadaad cunaysid qaabka aad wax u maamulayso qaabkaad wax u dhaqayso meesha noloshaada mar walba cusboonaysiin ka fakar inay mar walba u baahan tahay change cusub noloshu cusboonaysiin badan ay u baahan tahay. masalada lixaad waxa weeye haddaad rabtid inaad noqotid qof naajixa haddaad rabtid qof naajixa inaad noqotid khatid lilnajaax. mas'aladaas khatid lilnajaax waa mas'alada aan rabo maanta inaan wakti geliyo xoogaa fiican oo waktiga inta ka hadhay aan ku dhammeeyo oo ah noloshaada qorshe u samee. marka iyada kama hadlayo mar baan si gooni uga hadli doonaa. masalada toddobaad waxaa weeye laa tastajib almughaalataat. ha dhegaysanin waxyaabaha dadku ay isugu sheekeeyaan oo layaha fallaciska. fallaciska waxaa weeye waxyaaba khuraafaad ah bay dadkan isugu sheekeeyaan. waxay isugu sheekeeyaan qof masalan meeshaanaad joogtaa waxaad is leedahay waxbaro caruurta waxbar. dad waxaa jira kaa dhaadhicinaya wuxuu ku leeyahay warniyaho meeshaan waxba lagama faa'iido. wallahi maxaad ka faa'iidaya meeshaan Sweden war meeshaan gaalaa tashatay wallahi bidaar iyo caloolin baad kala tegaysaa weliga inaad wax ka keenayn. caruurta meeshaan quraan baa la baraa ama diin baa la baraa. waa wadan muslim inaad geysid keliya. ninkan innaga waxaa naga dhaadhicin jiray cambaha
waxaa laga qaadaa gastrin, mooska waxaa laga qaadaa gooryaan, liinta waxaa laga qaadaa gaas, hebelo waa wax kasta. waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo sheeko khuraafaada aan u samayno. haddaad dhegaysatid waad dhumaysaa. weliba dhallinyarada qof baa nolosha dhan kugu diray, wuxuu ku dhihi dumarka meeshaan jooga lama guursan karo, waa dumar baaba ah, waa dumar saan ah. war dumarkan maalin walba baadhiga ku jira iyo welcome baadhi iyo goodbye baadhiga ku jira miyaad guursanaysaa? africa aadoo naag ka doono. gabdhihiina waxaa leeyahay war meeshaan rag ma joogaan, nimankan waa saan, africa nin ka doono. war khuraafaadkaa weliga ha dhegaysan haddaad rabtid noloshaa inay horumar samayso. masalada kale, shaariki naas, dadka wax la mushaarake, participate, dadka ka qayb qaado, be active. masaajidkaad soo gashay, dadkii oo waxaa timid wax samaynaya, intaad fadhiisan lahayd kabaha kala nadaami oo kitaabada kala habee, odayga u baahan raydka gurigiisa geeyo baabuurka rayd c, oo maxaan ku dhahaa ka turjumaanka u baahan usoo turjum, oo midka foomka u baahan u buuxi, oo masaajidka baarkinkiisa xaaq. waxaad noqotaa qof dadka wax la mushaarakeeyo oo wax qabad leh oo ku dhex jira noqo. haddii kale meel baad fadhiisan waxaad dareemaysaa isolation, dadka inaad ka socan tahay baad dareemaysaa. masale muhiima wey. masalada shanaad waxaa weeye ihtama binafsika, naftaada ihtimaam sii. masalada naftaada ihtimaam sii. dad badan oo dadkeena ka mid ah naftooda way dayacaan, naftooda way dayacaan. wuxuu ka fakerayaa inuu dad wax tara, naftiisiibuu dayacaya. adoo naftaada dayacay. gabdhahan waxaan dhahaa, gabdhaha iyadoo qurxoon oo la leeyahay wow she look like a model, gabdhaha waxay ku dhahay she looks like a model, gabadhaan model bay u eg tahay, ma aragteen say u eg tahay. way guursanaysaa, markay hal cunug dhasho waxaa leeyahay gabadha say nafaqo u hesho mushaaliha lagu daldalo, overweight bay noqotay. mid kale uur yeelanaysaa, by the time 3 cunug ay dhasho 45 inay jirtaa loo malaynaya. ninka waa ka tegaya, naag kaloo aadaya. warant midaan uun waasaan. hadday isdaryeeli lahayd oo nafteeda ka fakeri lahayd, gabadhan beri darisnaa waxay tiri gurigayga waxaa laga kariyaa 3 dheri, 3 dish baa laga kariyaa. waxay ti kan ugu horeeya oo ugu macaan oo ugu nafaqada badan anaa karsada. markaan waxay ti anugu isku taabto baa ninka cunto u kariyaa, markaasaan carruurtana wax u walwalaaqaa. warma carruurtii iyo ninkii baad ka hormartay. waxay ti haddaana anugu isdaryeelin yaa reerka daryeelaya. waa xaqiiqa wey, xaqiiqa wey. aabbayaasha waa saas oo kale. nin waxaad arkaysaa afrikuu biilaa, carruurtiisiina biil ma haystaan. fiiri, shilinkuu helo ayuutuu ku jiraa. afriku lacag u diraya maanta dhan, lacag buu diraya. war adigu isdaryeel, xaaskaaga daryeel, carruurtaada daryeel, naftaada daryeel. markaas kadib waxaad ka hadashaa dadka kale. nebi maxamed baa ilaahay la hadlay, markaasuu wuxuu ku yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah, alle xaq lagu caabudo oon alla ahayn inuusan jirin ogow. maxaa lagu xijiyey? wastakfir lidanbika, naftaada dembi dhaaf u dalab, dadka kale lama dhihin. markaasaa leeyahy walilmu'miniina waalmu'minaat, dadka kale markaas caawi. fiiri, waa cajiib waayo qur'aanku. marka naftaada ihtimaam sii haddaad rabtid meel inaad gaadhin. masalada ugu dambaysa waxa weeye naftaada run u sheeg. be truthful with yourself. naftaada run u sheeg, been ha u sheegin naftaada. haddaad naftaada khuraafaad ka dhaadhicisid oo isu haysta inaad nin fiican tahay oo wanaagsan oo meeshii saxda aad ku socda aadna khaldan tahay, meel ma gaadhaysid. naftaada run u sheeg. masaladaas masale muhiima wey. waxaan ku soo dhowaanaynaa mawduuca qaybta ugu muhiimsan oo ahaa baytulqasiidka, ama waa midka aan rabnay inaan wakhtiga geliyo, waana qaybta afraad. marka waxaan ka hadlayay haddaad rabtid inaad noqoto qof asagu hagaagsan, naftiisa hagaagsan, dadka kalena wax tara haddaad noqotid, dhallinyaroy 4 arrimood samee. 1, horta qof wanaagsan oo saalixa noqo, raadi sida addoon saalixa lagu noqdo. masalada labaad, himo sare yeelo. masalada afraad, saddexaad, mar walba waxaad raadisaa waxyaabaha positiveka ah, iijaabiyaadka ah. masalada afraad, khatid linajaax, khatid xayaataka, noloshaada qorshe u samee. masalada qorshaha markaan ka hadlayno, waxyaabaha cajaa'ibta waxaa ka mid a oo aan la yaabay. jaamacad la yidhaahdo Harvard University oo ku taalla magaalada Boston oo gobolka Massachusetts Maraykan ku taalla, waa jaamacadaha adduunka ugu sarreeya wey, ama jaamacadda 1, 2, 3, 4 kama dhacdo. ayaa waxaa la yidhi waxay qabatay seminaar ay arday ugu talagashay, fiican yahay, ay ugu talagashay arday.
marka waxay sameeyeen taqdiid ardayda waxaa la barayay waxa la yidhahdaa self development ama strategical planning qofku inuu qorshe samaysto inuu wax noqdo inuu qorshe leeyahay 100 arday bay aruuriyeen 100kii arday yaa la waraystay 3 arday ayaa qorshe lahaa qorshe rasmi oo noloshooda ay ku socdaan lahaa 20 sano kadib ayaa ardaydii la baaray ardaydii bay soo aruuriyeen oo dad waaweyn noqday noloshoodii bay baareen waxay ogaadeen 3dii arday unbaa wax la taaban kara noqday waxay dhaheen dadkii kale 90% wixii ay haysteen marka la fiiriyo dadka 3 nin baa haystay 90% dadka kale ama ha noqoto madaxtinimo ama lacag ama position ama shahaado ha noqoto 3 nin baa ka sareeyay marka waxay dhaheen waxaan ogaanay adduunka dadka noloshooda qorsheeya 3% ma dhama حتى قالوا اللي هذا ويهرمرين أو قرشي ليهين أو وقت كفاءة يستان مركل لا فيريو بقول كيف صدح مدام بقول كيف صدح ناس وادتك أدونك هجامية وادتك أدونك وحكسو زيادية وادتك أدونك وحتروي واحد كلام في رسان حدي هذا قرشة لهين ما ننكستو نلاش هذا كم إذا أذيك أقوانته حداد قرشة لهذا هاي نلاش هذا أذا إسكالو أمامه وانا حقيقة واحد كلو اوغاتان قفكو waxa uu qorsheeyo u gaara haddaad rabtid nolosha markii inaad qorshe u samaysid waxaad fiirisaa meesha aan ku magacaabay ma isla socdaan powerpoint-iga iyo macaan isla socdaan iyo computer عفوا هذا waxaad fiirisaan haddaad rabtid noloshaada inaad meel gaadhid oo aad noqotid qof الغابة كده يا هاي مركز هجاجسان إيش يقدم له وحد وقتان حضور هو قفك إنه وحقر شيء وحن ليابي ومروا البان ليابا بري بقى أنه أرضية يا وحنوي مدويل أن يراه وأرضي عصبة مركا وجامعة إسلامية عندنا ودن كان لها باكستان ardayga markuu jaamacadda soo galo waa la soo dhaweeyaa marka waxa la weydiiyaa maxaad rabtaa inaad barato marka ninkii baa la soo dhaweeyay waxa lagu yiri maxaad rabtaa inaad baratid markaas waxaan rabaa inaan English barto ardayda ku qosqosay marka waxay dhaheen ma Pakistan baa waxa u timid ma Hindiya waxa u timid inaad English baratid maxaa wadamada kale English laga barto aad u weeyday hatta Afrikaanka dhaamay markaas wuxuu yiri nimayo aniga Kuwait baan waxaan ku soo maray jaamacad macallimiinta Englishka ka dhiga ay lacag badan qaataan waxaan rabaa intaan English bartay inaan jaamacadda macallin ka noqdo ma rumaysan kartaan ninkii asagoo MA English Literature haysta master oo English ah oo jaamacaddii macallin ka ahan ogaa hadda fiir wuu qorsheeyay oo ku talagalay wax buu bartay maadadu rabay buu bartay jaamacadda lafteedii uu macallinimo ka helay waxaad kaloo fiirsaan dadka waxaa la yiri adduunka ugu qorshaha dheeraa ninkan hadda lichi John F Kennedy oo Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ahaa 1960 buu khudba akhriyay gaasuu wuxuu yiri 10 sano oo soo socota Mareykanku waxay tagi doonaan dayaxa waxaan rabaa inaan dayaxa tagno waxay ahayd riyo adduunka lama filanayn markay ahayd 1969kii ayuu ninkii Armstrong la dhihi jiray ayuu dayaxa tagay soo sheegay annagu inuu tagay iyo inuu been sheegay aniga ima taal waa mas'alo kale laakiin markuu dayaxan ku istaagay oon tagay 1969kii bay ahayd dadku marka waxay dhaheen ninkan qorsho laha qorshiisa uu gaaray fiiri haddaad qorshe leedahay oo aad qorshaysid oo aad ku talagashid oo aad dadaashid wallahi qorshahaaga waad gaaraysaa
laakiin haddaada qorsho lahayn waa iska daba wareegaysaa waa iska daba wareegaysaa fiiri waxaa la yidhahda dadka bini aadamka waxay u qaybsamaa 5 qaybood dadka qaarkood waxaa la yidhaahdaa waa aljaaduun almuntaliquun almuxadiduuna ligaayatihim waa dad serious ah oo naftooda yaqaana oo qorsho leh oo qorshahooda say ku gaari lahaayeenna ay u caddahay u qoran tahay wey dadkaas waxaa la yidhaahdaa waa quwatun didda ashari wa quwatun lilkhayr waa dadka khayrka adduunka ku faafiya shartana yareeya waa dadka adduunka maamulo wey dadkaas ogaada waana dad yar dadka qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa waa qolo kale oo waxaa la yidhaahdaa waa aljaaduuna albaaxithuuna fi lwusuuli ligaayatihim waa dad serious ah oo dadaalaya oo raba inay goolkooda gaaraan laakiin waxaa dhici karta inay on and off noqdaan mararka qaarkoodna inuu wadadii ku saarayay mararka qaarkoodna uu ka dhaco qorshuu leeyahay mararka qaarkood waa ka khaldamaa waa dadaalaya waa ka caakufaya dadkaasi waa mujtamaca adduunka dadka awoodda u ah ee mujtamacu ku taagan yahay wey waana dad yar dadka qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa waa dad la yidhaahdaa albaaxithuuna aladiina ladayhim اlisticdaad waa dad raba inay wax bartaan oo qorshaha fahmaan oo waxtar noqdaan oo diyaar garow bay ku jiraan waa diyaarsan yihiin laakiin waxaa ka maqan tilaabadii lagu hagi lahaa baa ka maqan waa dad say u badan yihiin innagu waxaan jeclahay inaan wax noqono waxaan jeclahay inaan qorsho yeelano waxaan jeclahay inaan meel gaaro laakiin inta badan waddada mar rabaan ka dhacaynaa mar rabaan soo fuulaynaa dadkaas kala saas ku sugan ee mustacidiinta ah laakiin waddadii wax ka khaldan yihiin badan dadkaasaa adduunka ugu badan waana dadka ay dhici karta inaan ka mid nahay waxaa jirta qaybta afraad waxaa la yidhaahdaa almusqituuna can اطariiq almuntadiruuna min aلsamaa an tumطira calayhim maءa wadahaba lixuluuli mashaakilihim waa dad waddada ka dhacsan waxay aaminsan yihiin ood moodaa inay sugayaan inay samadu u soo daadiso roob iyo dahab mushkilaadkooda lagu xaliyo waxaad arkaysaa qof mushkila haysato waa fakeraya wuxuu ku leeyahy mushkila ay haysata haye mushkiladii xalkeedii ma raadinaysa ma raadinayo ma rabo inuu challenge gareeyo nolosha ma rabo inuu wax isku dayo ma rabo inuu meeshuu rabo gaaro keliya waa fakeraya saasuu isaga fadhiyaa haddaad noocaas tahay weligaa meel ma gaaraysa waa qof waddada ka dhacsan weeye dadka qaybta ugu dambaysa waxaa la yidhahdaa almutathabituun waa kuwa kale niyada ka dila waa qof waxba ma hayo adigu haddaad dhahdo waxbaan samaysanaya wuxuu ku leeyahay waxba lama tabci karo waxba lama gaari karo wax lama baran karo hadda waxaa jira niman wax badan waddankan joogay midba maalin wuxuu ku yidhi war waddankan af shimbireedkooda lama baran kara ha isku dhibin intaas soonu joog waxma barto kaasaa niyada ka dilay fiiri dadka niyada ka dila iyo dadka waddada ka dhacsan iska ilaali waa dadka u baahan in wax la baro waa dadka ugu dhibka badan waa dadka u baahan in la baraarujiyo laakiin saddexda qayb ee hore haddaad awoodid labada hore ka mid noqo haddaadan awoodinna ugu yaraan midka saddexaad noqo masaladaas masale muhiima weeye si aan u baranno ma dhici kartaa in uu qofku qorsho samaysto qorshiisa u gaaro waxaan kaloo ku weydiinayaa khaasatan dadka dhalinyarada ah qorsho ma leedahay what's your plan for the next 5 years next 10 years 15 20 years ka soo socda maxaa rabtaa inaad noqotid alimaam waxaa la yidhaha dadka cajiibka ah ee visionka lahaa adduunka ee rabay inuu meel gaaro ee gaaray waxaa ka mid ah alimaam xaafid ibn xajar isagoo dhalinyaro abu wuxuu jeclaaday kitaabka le saxiixu albukhaari kitaabkii marka wuxuu yidhi kitaabkan waa inaan sharxo 36 sano ayuu kitaabkaa sharxiisa raadinayay xadiid aruuri aqwaasha culimmada aruuri safar meel aad suu u socday markii uu gaaray waxa uu rabay ayuu wuxuu soo saaray kitaab la yidhaahdo fatxu lbaari culimmadu waxay u bixiyeen laa fatxa bacda alfatxi kitaab dambe oo bukhaari sharxo ka dambeeya ma jiro fir qorshuu lahaa qorshii wuu gaaray haddaad rabtid inaad qorsho gaadhid waad gaaraysaa laakiin qorsho ma leedahay maadadan ardada waxay ka caawisaa inuu qofku samaysto qorsho qoran oo uu raaco wuxuu ahaa seminaar soconayey 4 ilaa 5 saacadood soconayey
oo arday oo fasal ah galaas ardaydu ku jiraan laakiin waxaan rabaa inaan soo khulaaseeyo si aan niyada ardayda aan u kiciyo kaliya oo uu qofku qorshe u samaysto haddaad rabtid inaad qorshe samaysatid waxaad u baahan tahay laba arrimood oo noloshaada ka mida inay ku cad yihiin haddaad rabtid inaad qorshe samaysatid laba qaybood oo noloshaada ka mid ah waa inay ku cad yihiin shayga koobaad laabudda an yakuuna cindaka risaalatun waadixa waa inaad you should have a clear mission of your life waa inaad haysatid mission cad oo noloshaada ku sugan waa maxay missionkaaga nolosha maxaad u nooshahay maxaad rabtaa adduunka inaad kusoo ziyaadisid xaggeed u socotaa maxaad higsanaysaa missionka waxaa la yidhahdaa waa dariiq mustamir ah ilaa aad ka dhimatid waa waxa aad ku socotid ilaa aad ka dhimatid marka naftaada qorshe u samee qorshahaas waa maxay horta waa maxay risaalada aad xambaarsan tahay innagu waxaan naqaanaa qofka marka la weydiiyo risaaladiisa wuxuu ku leeyahay yaa allah wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ilaahay baaba noo sheegayba jinniga insa waxaan u abuuray inay caabudaan anigi waa inaan ilaahay caabudo laakiin waxaad ogaataa risaalada qofku uu u nool yahay waxaa weeye waxa aad rabtid in aad ku sugnaatay ilaa aad ka dhimato waa messageka aad xambaarsan tahay waa maxay haddaadan message lahayn haddaadan mission lahayn meel ma gaari kartid walidaalika waxaad arkaysaa qur'aanka markuu ka hadlayo masalada risaalada ah qur'aanka way ku soo noqnoqotay ilaahay ambiyadu ka hadlaa waxaad arkaysaa watawallaa canhum وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم رسالة حنبار سنايا أمضي وان إذن قارسي الرسالة دي بولية نايم حلولية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة دي كما أذا قارسين نايم محمد الصقع نرش رسالة نرش وحيتاي وحولي نايم محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحال إيسو بحيي إن أخلاق ذا ما يسترو رسالة نبي محمد محي إنه أخلاق ذا ما يسترو وحال أركيسا أولي هاي فقل إني أنا النذير المبين وحان هاي مدقية وعد وحال إيسو دري إن دتك أدقو وعن حقة تصو ورسالة عدوي وحال يرى هذا آيات رسالة النبي محمد عديسي أو جامعة وحوي آيات إلهي أولي تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وشرح دون آيات وحلو لجيد لكن وحال لي هاي مركز ربتد إنها رسالة هذا فهمتد بالله بس عوض إنتاد أدون أتكقى تفصح كل جامع الفريس كل جامع الفريس إلهي صبنا يقول إنما أعذكم أن تقوموا لله مثنى إنما أعدكم بواحدة هل أرنبان إذن كوانينيا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا كل يوم الفريس فكر وحد كيف فكرتا الدون كان مهمة أن أجوغ وامحي كيف فكر لأن يرى أرضي باتاي متعلم باتاي قناع صداتاي والد باتاي الدون كان محد أجوغتا فكر waxaa kuu soo baxaysa adduunkan waxaan u joogaa waxaas iyo waxaas qor waraaq ku qor waxaad qortaa aniga risaaladayda adduunka aan u joogo waa saan iyo saan aniga markaan diyaariyey risaalada aan adduunka u jooga maalan waxaa ii soo baxday adduunka waxaan u joogaa waxaan idhi risaaladayda waxaa weeye irdaa'u llahi tacaala inaan ilaahay raalli geliyo wa an aciisha saciidan inaan nolol sacaado ah ku noolaado degan fiiri wa ufiida linafsii wa ufiida lilaakhariin naftaydana inaan u faa'iideeyo aan waxbaro dadka kalena inaan waxbaro intaas aan u noolahay inaan alla raalli geliyo nolol degan oo sacaado leh aan ku noolaado waxaan haysto anoon fiirinna xataa inaan wax degan ku noolaado nolol degan ku noolaado inaan dadka naftayda u faa'iideeyo dadka kalena aan u faa'iideeyo risaaladayda waa intaas marka aan risaaladaa qoro oo waraaq aan ku qoro hal layn waa inay ka badanin derbigaan ku dhejinayaa meel aan u jeedo habeen iyo subaxba aan arkayaan ku dhejinayaa akhi marka isweydii maxaad u nooshahay adduunka maxaad adduunka u joogtaa annaga marka ciyaalkeen waxaa nala weydiin jiray sheeko
xoogaa wareer waxaa la dhihi jiray ma waxaad u nooshahay inaad wax cuntid mise waxaad wax u cuntaa inaad noolaatid ma waxaad wax u cuntaa inaad noolaatid mise waxaad u nooshahay inaad wax cuntid aniga hadda waxaan fahmay waxaan wax u cunaa inaan noolaado laakiin haddaan u noolaado inaan wax cuno 6 bilood gudahood overweight baan noqonaya soo ma waa xaqiiqa wey marka waa risaalo waay fiir risaaladaa lagu baraya waxaa lagu barayaa nolosha waxa aad u joogtid ma aha inaad cunto cuntid keliya ma aha fiiri risaalo adduunka waxbaad xambaarsan tahay risaalada aad xambaarsan tahay waa maxay waxaa la yidhaahdaa risaalada aad xambaarsan tahay waxaa lagu gartaa inay sax tahay innaga ardaydu waxay yaqaanaan mission statement waay mission statementigaaga waxaa lagu gartaa 3 shay inay ka maqnayn hadday 3 shay ka maqan yihiin waad dhunsan tahay haddaad qaradka aad u nooshahay ama muhiimadda aad u nooshahay ama dowrka aad nolosha ku leedahay haddii 3 arrimood ay ka maqan yihiin waad dhunsan tahay mid afraadna waa lagu dari karaa midda koowaad waa inay kaaga soo dhexbaxda markaad fakertid allah fiiri anu haye muhiimadda marka waxaa weeye waxaan idin idhi allah waa inay ka soo baxdo walidaalika anigu waxaan idhahay waxaan u noolahay irdaa'u llahi tacaala inaan alla raali geliyo fiiri inaan alla raali geliyo number 1 bay ii tahay haddaad alle ka weydid risaaladaada mishinkaaga waad dhunsan tahay ma fiirsada irdaa'u llahi tacaala dhalinyaradeenna waxa inta badan dhumiyana waxaa weeye risaaladooda allah boos kuma leh ka fakerayaa inuu wax barto inuu meel gaaro inuu khatar noqdo laakiin allah baa ka maqan midda labaad naftayda waa inaan ka fakero waxaa kaloo ka mida nolosha waxaan u noolahay naftayda an aciisha saciida inaan sacaado ku noolaado inaan naftayda ma halmaamayo waa inaan naftaydana ka fakera maxaa naftayda u tari karaa masalada saddexaad alaakhariina dadka kale waa inaada iloobin ehelkaaga caruurtaada xaaskaaga mujtamacaaga waalidkaaga maxaad u qaban kartaa saddexdaa marka waa inay ku jiraan allah rabbaka nafsaka iyo alaakhariin markaasaad waxaad ku dari kartaa gaayaat ukhraa waxyaabo kale waxbarashadii iyo hawlo kale iyo markaasay imaanayaan laakiin intaas waa aas-aaska inta awey markaad risaaladaa qortay akhi haddaadan risaalo lahayn risaaladu waa waxa la isku cabiro oo nafta lagu kontaroolo derbiga meel aad u jeedid ku dheji bal intaad fakirtid keligaa meel fadhiisatid oo shaah karsatid oo shaahan jecel lahay oo xalwad aad qaadatid xalwaddana waan jecel lahay xalwad cun qur'aan daaro muusig dhegaysta kuma dhahayo qur'aan daaro fakar 2 saacadood saacad fakar waxaad ka fakertaa aniga adduunkan maxaan u joogaa oon u noolahay waxaa kuu soo baxa inaad alla raali geliso inaad naftaada wax tarto inaad mujtamacaaga wax tarto ayadoo hallayn aan ka badnayn waraaq weyn oo qurux badan ku qor derbiga ku dhejiso markaad derbiga ku dhejisid subax iyo galabba waad arkaysaa dad baa waxay dhahaan oo sheekhu maxaa derbiga ugu dhejinayaa waxaan rabaa waxa markaad aragto subax iyo galabba naftaadu way la qabsanaysaa waad isku controli kartaa waad saaxiib baad la noqonaysaa beri baan waxaan deganayn qol marka waxaan nala degan guri baan deganayn waxaan nala degan nin dhalinyaro halmaan badan marka maalintii dambe baalkan stoofka ama wax lagu kariyo oo daaran buu ka tegey habeenkiiaan marka eber ka dhignay warniyo guriga waan ugu gubi rabtay war maxaa si ka ah warniyo waa sidee war waan wereerinay waraaq weyn intuu soo qaatay oo stoof uu ku qoray buu albaabkan ka baxayna ku dhejiyey marka uu sii baxayo arkaa stoof uu soo noqdaa wuu fiifiiriyaa annagii abuufis marka nagu dhacay markaa sii baxay stoofka markaa aragtid gadaal baa u noqonaysaa waa fiirinaysaa fiiri waxa markaad arkaysid saamayn buu kugu samaynaya haddaad albaabkaaga ku dhejisid risaaladaada aniga waxaan u noolahay inaan alla raali geliyo oo deganaan aan ku noolaado oo aan naftayda u faa'iideeyo oo aan dadka kale u faa'iideeyo waan isku kontroolayaa mar walba marka maalan haddaan arka naftaydu alla caasinaysa waxaan leeyahay risaaladaydii ma ahayn saas haddaan xaaskayga hadday buuq igu furto waxaan leeyahay xaajiyoy aniga risaaladaydu waxa weeye inaan nolol degan ku noolaado adiga taada soo dhejiso halkaa ku soo dhejiso
أنا تذا هالكاس يكون دقنته هذا هالكا كله جسوا هذا أنا وافقينا تيذا وافقينا مركب بوق مجرو وإن نردق كنا ولا هذا إن نفتي دفع إن دتك كالأوفا إذا رسالة داس عد مركب أديالتي وحد كلا أبا هنتهي وحياة رسالة الوقت وحكم السؤال أسوي دينيسا محاك وقوم سنة دونك محاضرة إلى النقطة وحد ذكرت مركب إنه يكوص بحضر أنت شو شيء مهم بردي هذا وحاجة سوي ديسا نرش بحض ونرشها إنك لو حنوصل بحس إن الإله عابدنا صح وأن نفتهنا واحتره أو ضدك كلام واحتره وما حي وحن نرش هذا أمهم صن أو خصية محا أمي فكر وحد كيف فكرت هالشان شيء أو نرش هذا أمهم سك فكر وحكوص لأن يرضى وحكوص نعيسى وحيقوم مسألة القرآن كحفظه وحيقوم مسألة علم برته وحيقوم مسألة جورسده وحيقوم مسألة عروض التربية وحيقوم مسألة العقيش شن شيء أو نرش هذا أمهم صن وراك قرو شن تاشيء وإنا صنت كان ملك جادد وي فيري ومش وسمال وحالي هذا important aspects of life نرش هذا وحياها مهم كأوي قر مال كقر ديوان جلي مال كقر يعني قبل بانين تأتمد يعني نين معالج نما كان ضدك وحبراء أو نولش شهر مركز كشكية وحي تري وحن ربا إن كونسلين ليس يوم سؤال بويدو وحكيري ما حق مهم سن نولش هذا ما أنت أضربته قصيت إنا بابور قط الدون كوحق مهم سن إنا بابور يش سؤال مهم أوي لأن يرد تينيجرز كا لحية طوان يشان يطوان يجرى الدون كوحق ولا مهم سن بابور يش مركز هذا بابور يلتيد ما حد كفائدة ساعة قصيت وقت يسيف قروبي ماشي أن صدح أفر ميلود ما أنتو لأن أن ترين صاران لها يبص ساعات جذيت بان كنت جاية وحولبا مركزية هذا وقت سيف قريسين ما حد كفائدة ساعة مركزية تري more production وحنصار سعره يا واحد تربضا وحديث كتساعد جذ إن عروض حوصة قطة وعنت أنا وكريو وسكول أن كسر قاضو وأن grocery shopping أصلا سماية ساعات جذ هذا ما وروت مركزية هذا more production سماية سيد ما كفائدة ساعة مركزية satisfaction نفط هذا إن satisfaction كسماية يعني نفط هذا قناعدان ربع دجنان أن كنا على هذا مطمئنا أن كنا على هذا مركزية هذا اطمئنان الدجنان كنا ولا تد ما حد كفائدة ساعة مركزية وحي تري مركز درجة جوكتي الميسيب وحأصور أنت أيضا دجن أو نرش مش وصل رئيسي توكتا وكيف كريسة محاكا دمبية والميسي وحيابها الوقر ترسالة هذه إنها تقعد وحكمي ده درجة قدام بيس قناعة النفط هذا إنه يقعد واحد قريس مركز ويديس تبع هذا محان أدون كهرباء محان رباء إنه نقاره وفير وحان كوي إنه الله هذا اللي جلس وحيابها إخواني قف كستوء النجمة وحوليه هاي هداد ربت إن رسالة هذا قرشة إن سميسين قضب كلابات وحويه إن لا ده واحد الرؤية الواضحة وقرشة لما يسترن أو عدوي وحالي هذا وواحد فيشن كوي فيري تيارة وحي هذا الرسالة تنوى قرشة عدو دقن مثلا شنطة سنة أساس على محان ربائنا النقض لبض السنة أساس على محان ربائنا النقض أنبيادي إلهي مركا لغشة كينيو قرشة عد بيلهايان هذا نايم أحمد وحاد في رسالة مركا أمكا كب حيي قرشيسة وحاد إنه مكا كسو النقض قرشيسة وحاد مكا إنه كسو النقض ما كسو النقض ها ما أنت كسو النقض يمحو إلهي كسو دتي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وحاد أخي كيف فكرتها مركا قرشها نولش هذا وامحي وحنكوبا لنقاضيا هذا أفر درجة مرتد كلية إن قرشها جاريسين كو إن الدرين لا إن رتينا واحد نقطة لبو إن القرش السميسين قر واحد رتينا نقطة مدة صدحات دقن جلي يسكان نقول قرشوه كلية وحلا قرئة دقن جلي مدة قدام بيسا قصة بالقرشها وحال إذا لو ذا جيا لبقي الصو أو ضدك قرشها ياش سيء جارانا والله وحان أركي والله إيجا شاكينن nin dhalinyaro oo dadka waxa weeye mar walba qorshaha deji wuxuu ku leeyahay aniga noloshada dhan qorshay ku socotaa uu guursaday gabar buu dhalay gabadha markuu dhalay baan u tahniyadeynay
aniga marka macallin quraan baan ahaan jiray markaasuu wuxuu yidhi macallin cabdirasaaqow waxaan rabaa inantayda marka ay 2 sano gaadhay ayadoo af soomaaliga dhammaysay daadisay inaan iskuulka dugsiga kugu keeno quraan aan u dhigtay markaasaan waxaan idhi aniga waa iska hadlaysaa 2 sano si waa arki doontaa 2 sano iyo bil camal gabadhii oo jirta baan jidka iskaga hor nimid iyadoo yar oo madaxa u xiran yahay la socoto si aabba orad adeer salaan sayta assalaamu calaykum inta islaantay wacalaykum assalaam adeer see tahay saan waa fiicanahay aduu seeta waa fiicanay saan idhi ka waran reerkiinni wuu fiican yahay carruurtii walaalaha ahaa sayta walaalo ma nihin aniga iyo hooyo keliya weeye reer kale ma jiro saasay u hadlaysaa markaasay ti adugu see tahay waa fiicanahay xaaskaaga ka warran adeer xaas ma lihi carruurna ma lihid miyaa ma lihi markaasaa aniga yaabaa iga soo haray waxaa warniga gabadha maxaad ku samaysay markaasuu qorshaan u dejiyey qorshihii baa ku socda waxay ahayd 2 sano hore inay luuqada barato wayna baratay waniyo seed ku bartay luuqada wuxuu yidhi waqti baan geliyey weligay buu yidhi maalin baan reer dariska uga tegey maalintiina wecli hobay soo baratay halkaa maalin wecli hobay ka soo bareen buu fiir waxaad fiirisaa qorshuu lahaa ninka qorshihiisa wuu gaaray nacam wuu gaaray nimankan hadda aad maqlaysaanoo adduunka wax noqday oo dhan waa qof qorsho lahaa oo qorshihiisa gaaray ninkan la yidhaahdo Waltham waa ninkan iska leh wall market dukaamada leh waa dukaamada adduunka ugu lacagta badan ayaa waxaa la yidhi grocery shopping meel yaroo wuxuu lahaa lagu iibiyo groceryga waxyaabaha lagu iibiyo cuntada iyo markaasuu wuxuu dhihi jiray waxaan rabaa inaan sameeyo dukaamo isku xiran oo 3 sifo leh alaab raqiis ah oo quality fiican leh iyo shaqaalo firfircoon oo tiro badan leh baan rabaa inaan sameeyo hadda waxaan la yaabay marka aad rabtay inaad wax heshid degdeg ah oo raqiis ah $10 iyo wax la mida waxaad aadaysaa wall market jidka aad martidba inta badan qof baa kaaga hor imaanaya ku dhahaya can I help you can I get you something ku dhahaya ma ku caawiya maxaad u baahan tahay ku dhahaya wax xaqiijiye qorshuu lahaa wuu gaaray waxaad ka fikirtaa walaalle wallaahi ma gaaraysid qorshe aad leedahay weligaa haddaadan intaad qorto qorshaha aadan dhaqan gelinin waxaa la yidhahdaa qofka qorshaha leh wuxuu xaqiijiyaa 2 arrimood dadka kale ma helaan wuxuu xaqiijiyaa waxa la yidhaahdo sacaada iyo najaax qofka keliya oo sacaado iyo najaax hela waa qofka qorshaha leh sacaada iyo najaax waa maxay inaad noloshaada aad sacaado ku noolaatid happiness inaad ku noolaatid iyo inaad succeed noqotid oo meesha hartid gaadhid waxaa lagu helaa inaad qorshe leedahay haddaad leedahay mission iyo vision aad ku socotid oo cad oo aad risaalo iyo qorsho waad gaaraysaa waxaadna xaqiijinaysaa sacaado iyo najaax haddaad risaalo keliya leedahay laakiin aadan qorsho lahayn waxaad xaqiijinaysaa sacaado laa najaax ma xaqiijinaysa walidaalika dadka ahludiinkaabaa ugu badan sacaaday ku nool yihiin laakiin najaax ma gaaraan fiiri najaaxa ulama jeedo inuu qofku cibaadaysta keliya waa inuu waxbarashadii meel ka gaaro oo dhaqaalihii meel ka gaaro oo dugsigaaga 2 sano markuu furan yahay intaasoo cunug ay qur-aanka xifdiyaan wey fiiri waa najaax wey marka waxay xaqiijiyaan sacaado wuxuu ku leeyahay wallaahi waa naftu way degan tahay ilaahay buu caabudaa waa habi laakiin wax ma haysto dad wax ma taro qorshe male waa sacaado keliya dadka qaarkood waxay leeyihiin ru'ya qorshay leeyihiin laakiin risaalo ma leh waxay xaqiijiyaan najaax aan sacaado lahayn waa dhalinyarada hadda wax baranaysa fiiri wuxuu rabaa inuu najaax gaaro inuu meeshuu rabay gaaro laakiin by the time he finished the school ama she finished the nursing school xataa muslim ahay baa dhici karta risaaladii ka maqan fiiri gaalada lacag bay haystaan meel bay gaareen laakiin qofka ka fakaraya isagoo millionaire inuu isdilo waxa weeye qorshe wuu leeyahay laakiin risaalo ma leh mission ma leh gabar waxaa jirtay aad waxbarashada ugu dadaashay oo waxbaratay dhakhtarad bay noqotay oo sacuudiyada markay weynaatay ilaa ay PhD diyaarisay dhakhtarad ay noqotay wax guursaday weyday markay weynaatay dhakhtarka carruurtay noqotay baa la yidhi marka subaxii baa carruurtu leen usoo galaan qoorta waxaa u saaray bahalka lagu weysitaynayay iyo qamiiska caddaa ee dhakhtarka subaxii dambe oohin meesha kala kacday intay bahalka iska siibtay waxay tiri bahalkan wuxuu iila mid yahay xadhig laygu ceejinayo
قميص كان وحو إلى ميدها عض كفنتي قبرها خذوا شهاداتي واسمعوني كلمة تماما وشهادوين كيغا قاطو أو عنق هوية إده هي مقشية محاكم مقن سعادة نجاح ويها يستطاع marka akhi hadaad kartid inaad dhakhtar noqotid inaad injineer noqotid inaad businessman noqotid inaad waxaan dhahaa waalidiinteenna waxaad ka fakartaan income inaad heshid laakiin kama fakartid income-kan xalaal iyo xaaraam wuxuu yahay najaax waad xaqiijin kartaa guryo waad dhisi kartaa laakiin maxaa ka dambeeya hadduu income xaaraam iyo maxaa ka dambeeya waxaa jira la yidhi dad aan qorshana ma leh risaalana ma leh labada hadduusan qofku midna lahayn sacaadana ma gaaro نجاحنا ما قارو وعيال كانوا سيئوا بدين عروتين هادو قفكو يا عنقو وسمشن لهين فيشن لهين قرشان ماله رسالة ماله واسكسوا على وحنا قلنا يا عنو كلية قرقة كسوا بحا مالها استاجا عيارة مالها سوريجا يا هداد دور محاكو ودعي وحكوا يا سبورين just wanna kill my time وقتي أندليا وقتي أسنافنا يا entertaining myself قف كاسو حقيقة قارية إخواني مركب وحنا إذا كبورين يا maanta waad yaryartihiin dhalinyaro badanay ninka dhalinyarada oo jira 25 ama 17 ama 15 ama 30 jira maanta fursad baad haysataa wallahi markaan arkay dhalinyarada 15 jira waxaan yiraahdaa I wish I knew this when I was 15 waxaan jeclaan lahaa markaan 15 jiray inaan aqoon lahaa nolosha loo qorsheeyo laakiin maanta aad fursad baad haysataa waalidkow aad fursad baad haysataa waxaa dhici karta inaad qorshe lahayn صالير بعد سيريا أنا حالي وحنكنمد مثلا مقالة ينكنمد الله جوج مقالة ذن هداد خبتين إن أدين مقالة هذا استوخم درت إن أدي هذا أرتينا أدين محظو بهنته وحظو بهنته إن بابور قاعدة تخينتي أصلا إن بابور شدال كشوبتين إن navigation system قاعدتين إن بابور تايريس واسكا فيرنيسا بوكد ماني جاس كاجبات قاعدنيسا وحصل قرشوي مقصد دقاقيسا كورهن أضو بابوركي جاس كبوحيي أو navigation أن قاعدنين أو أن قرشوسا من هدا اسكت دقاتيسين وحتكوا بريسانيسا أضو جوغو حدود كدنمارك سما بتكوا بريسانيسا إن عكلا هذيسا حقيقة وحا ضد بدن نجمد واساس واسكا سعونا نولش وغورسانيا واسكا دقاتينيا غبر بو غورسداي by the time ay hal cunug dhashaba waryaha horfinta aa dhaqaylnays xageed ka timid iyo way waqtigan u socotaa iyo u furaya sababta qorshe ma leh waalidkiisaas way caruur baa la dhalay tiro badan caruurta qorshe ma laha mid waa madax adkaaday mid guriga ka cararay mid waa halaabay mid waa wareeray mid ilaahay baan iyo quraankiiba xusdiyay waalidka wasla hadlaya waryaha war waxa dhici karta adeer inaad is ogeyne inaad u si drive gareynaysa magaalo kale way dhici kartaa sababta qorshe ma lihid marka naftaada qorshe u samee caruurtaada qorshe u samee ka fakar fadhiiso fakar maskaxdaada ka fakar war 10 sano soo socda 5 sano soo socda sanad kaliya ka dhig sanadka soo socda xagee baan rabaa inaan gaaro maxaan rabaa inaan qabsado maxaan rabaa inaan tabcado maxaan rabaa inaan xageen u socdaa ka fakaro isweydii waxa xaqiiqo ah inaad rabtid meesha aad rabtid inaad gaaraysid waxaan kalimadan ku soo khatimayaa afartaa shay qofkii raba inuu meel gaaro afartaa shay dhaqan geli horta naftaada hagaaji marka hore okay waxaad yeelataa himad sare yeelo waxaad ka fakartaa mar walba inaad positive noqoto qof iijaabi ah naftaadana qorshe u samee haddaadan naftaada qorshe u samaynin meel ma gaaraysid intaasaa dhihi jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاه الله خير الجزاء ان شاء الله الهك كوال موضوع dheer buu ahaa arday baa loogu talagalay marka haddii arday loogu talagalay presentation iyo wuxuu u baahan yahay galaas oo kale laakiin wuxuu ahaa ilqaa kaliya aan idin sheekeynayay marka kaliya muhiimadeedu waxay ahayd inaan naftaada isweydiiso wariyaa qorshahaaga waa maxay intaas kaliya جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاه الله خير الجزاء الهك كوال محاضرة قيم كشيخنا الشيخ مارتي